kulanto wacan wanaagsan daawadayaal halkan waa warsan news waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida ee caalamka qaybtan waxay si gaar ah isu dul taagi doonaa xogo iyo macluumaad cusub ayaa laga helayaa maxaabiista u xiran dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee waqooyi bari oo uu ka mid yahay Faysal Cabdi Bootaan saraakiil ciidan madaba in dil toogasho lagu xukumayo codad iyo cadeemo sax ah oo muujinaya xiriirka tooska ah ee ay la sameeyeen qaar ka mid ah ehelada saraakiisha ku xiran Laascaanood madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee waqooyi bari Cabdiqaadir Aw Cali Firdhi ayaan halkan idinku soo koobi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal dhamaantiina haddii aad nagu cusubtiina ku soo biira barteen YouTube channel-ka aad naga daawanaysaan ee warsan news si aad uga mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada aynu had iyo jeer halkan aynu ku soo baahino hagaag aan ku bilaabo muuqaalkan oo ah mid gaar ah waynu si gaar ah u dul taagi doono duruufta nololeed iyo xaaladda adag ee wajahayaan maxaabiista Somaliland looga qabtay dagaalkii ka dhacay qaybo ka mid ah Laascaanood isla markaana uu ka mid yahay General Faysal Cabdi Bootaan iyo saraakiil kale oo ka tirsanaa ciidamada Somaliland ee lagu qabtay dagaalkaas oo wali ku xiran xabsi ku yaala magaalada Laascaanood ee xarunta u ah dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee waqooyi bari macluumaad soo baxay ayaa sheegaya in saraakiishan qaarkood degdeg loo tooganayo oo tiirka cadaaladda la geyn doono sida la wadaagay eheladooda oo si toos ah xiriir ula sameeyay madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee waqooyi bari Cabdiqaadir Aw Cali Firdhi mid ka mid ah wiil uu dhalay saraakiisha ku xiran magaalada Laascaanood ayaa u xaqiijiyay warbaahinta in aabihiisa la xaqiijiyay in dil toogasho lagu xukumayo isla markaana tiirka la geyn doono maalmaha soo aadan wuxuuna cod dheer uu ku dalbanayaa in ay doonayaan in arintan lagu baxo maamulka waqooyi bari oo ay kala hadleen dagaha ay ka fariisteen oo uu sheegay in xaalad adag iyo qoys ay wajahayaan waxa uu eedeen culus uu dusha uu ka saariyay hogaanka imikan Somaliland Cabdiraxmaan Cirro iyo midkii hore ee xukuumadii ka horeysay tan ee uu hogaaminayay Muuse Biixi Cabdi wuxuuna sheegay in aabihiis iyo saraakiil kale oo halka ku xiran ay wajahayaan xaalad qoys nololeed ah isla markaana ay doonayaan in si degdeg ah loo badbaadiyo waxa sirta banaanka uu keenay ay tahay in dhamaantooda tiirka la geyn doono oo la toogan doono tani oo soo dadajin doonto rajadii laga qabay siideynta maxaabiistan waa cusub oo u bariya dhammaan ehelada saraakiisha iyo askarta ku xiran Laascaanood ee ka dhow sugayay go'aanka ugu dambeeya ee dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee waqooyi bari ah siideynta maxaabiistan oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud toddobaadyo kahor uu gaaray Laascaanood uu kala hadlay aabbahay meesha ku xiran garkayo balku aniga ilaa iyo daraad ilaa intii ka horeysay qoladan xukuumadda Muuse Biixi oo tagay markii horeba waan la hadalnay Cirro wuxuu la soo baxay ilma adeeradiisun waayo nin maanta subeer ah walo halka ku xiran oo awalna qaranka isagu dagaalamay isaguna buurta saarnaadee waxa weeye waxba kama quseeyaan laakiin anaga maanta aabbahay halka ku xiran dhulbaanto waxaana waa hadii kuure waa adduun oo adduunku waa isbedelayaa oo waxaan aadi anu hadal xitaa dareenkayga walaa shucuurtayda ma la soo koobi karo maanta in aabbahay halka lagu falaqeeyo oo waxa weeye hadii kuuro yahay dilkiisii la ii sheegay baabay in la dilayo brisba aad wax looga xumaada weeye miyo niman dhalinyarada baatii aabbahay khalad baa halka keenay waa run in uu waxa weeye hadii kuuro yahay wadan uu salayn ku dagaalamo in uu waxa weeye hadii kuuro yahay inuu si joogo ka dagaalamo horta aad wax looga xumaada weeye laakiin ilma adeeryaal Ilaahay baa idinku dhaarshay qabriyadiina aanu xusayna dhulbaanto Ilaahay baa idinku dhaarshay nin dhalinyarada nin adduunka future kala baay nin inta uu aabihi halka ku xirnaa aan habeenadin baay sax nin ciil iyo carab ku seexday baa adabay faateen maanta ila aabbahay halka la yiraahdo waa lagu tooganaya bris wax waa la tooganayaa wax yaani qof bilo aadar qaaday dhalinyarada qaadan karbaaya soo faateen ba tii dhulbaanto rug weystile lacagta hadii dhiliyo golaaday baad reeyal qaata hadii kale taa waxa weeye dilaysaan ilaa falaqadan iyo waxa ka daayo si waxa weeye caadiya ninka ragga dilna uu gaya dayna uu gaya hadii 2 milyan lacag liib la qaaday oo aniga adeerkii uu ka shaqeynayay waliba waxa weeye Abdullaahi Kuure Cabdisalaam uu ka shaqeynayay in uu ninka la yiraahdo Firdhi lambarka ugu dambeeyay xaq uma laha oo uu nagu jaro ilaa iyo darad waan uga caynay ilaa iyo waxa weeye tii ka horeysay waan uga caynay lambarka ugu dhigay aniga xataa dil yiraahdo kamarada furo wallahi oo furanay wax wajigan kala yahay ma jirto adduunkan aabahay halka ku silcay ku rafaaday
oo dhulbaanta waxa way isu doonay u cadaabaya oo qaabaya habeen farxad kuma naasiixan family iyagu toddobaanu nahay toddobadayda farxad habeen kuma naasiixan marka ilma adeerayaal aan waxaan dhulbaanta aad uga codsanaya in ay aabahay noo sidaysaa ilaa qoodhin iyo xiradin iyo xiniintiin halkaa waxaa ku shubay waa Muuse Bixi ilaahay cadaabta geeyay kan ninka yar Cabdiraxmaan Bakaylana kabada batigin uu ilaa ilaahay ka baqa dhulbaantu saaxib garkay gumada saanadin haysanaa waynu dagaalami jirnay waligeed bayna waxa weeye dilaa ku reestiri jirnay laakiin reer qoodhin iyo xiradin iyo xiniintiin aabahay maanta uu hatta aniga igu dayin kartaan xitaa hadda leedin adigu bedelkiisa kale anigu toogashada waa galaya aniga hala igu bedelo saaxib laakiin aabahay macaan leh oo waxa weeye dhiikar leh oo oday waayeela in maalin walba la sidciyo oo la tuqeeyo oo maanta la yiraahdo waa la tooganaya bara bulsho waynu saaranahay qolka ilmaadeer ilaahay ka baqaabay daayay badaraya oo iska sii daaya oo xadaartan aniga ay toogta waxa yariina kula hadlo sheeko horta Soomaaliya soo dhawaada horta wiilka wareysigiisii wallaahi billaahi tallahi waa kan dhaxay caloosha ay xanuuntay wuuna ooyaya aabihiis oo la sacanood ku xidhnaa 4 sanadood oo aan laga soo daba ka wareegin oo ciidankii uu dagaalamayay dadkii uu dagaalamayay aanan maalin ka hadlin oo aanan xitaa cidi ka soo horka wareegaan muxuu qabaa in labana ugaas ma uu kaadi waa soo dhigaa fayako mudiga ay hal kalmad baan ku oranaya 80 maxaabiis oo garxajisa la sii deynaya habar awal iyo habar jecel xabad laga sii deyn maayo waa yahay muud noogal wax ma sheegnaa wiil horta qolka sheer gareeya waad aragtaa risaaqow wiilkii waad aragtaa dhulbahanto wiilkii garka yogolka u dhalay inuu caawi ooyayo oo ilmada saa u hilqaynayso wallaahi billaahi tallahi waan ka naxay bay maqlaasani kale sheeko warta abaha de la sacarood waxa lagu qabtay dagaalkii boqordarkay waad garanaysaa khaladaad badan buu geystay dal aan lahayn buu ka soo duulay hargeysa iyo gabilay buu ka yimi abaha muxuu soo doonayaa abaha waa la soo khalday ninka soo khaldayna abaha waa Muuse Juudaan maanta ina oydaan oo aad tiradan lacagta inta leeg baan soo madhigaynaa 2 bilyan adeerka waa run adeerka wuu soo hadlay anaga adeer ku sheegnay adeerka firdhiyo wuu la soo hadlay iyo madaxweyne ku xigeenka Cabdirashiid ba iyo garaadada inta wuu la soo hadlay walaal dadka u dhiibinka qolka u taayeen hadalka ku ina u dhiibaya wiilka hadal ku celinaya wiilka lacagta wiilka hadal ku celinaya in yadiigal waxa sheekay may maqlaysaa waxa qolka saarsan waa reer Somaliland waxay ku leeyihiin waa been bay ku leeyihiin hadalka adag ku socoliya hadalna irsiida garaad horta de maalin babooyo rag ninka inta halka soo fariisto ina Axmed Liyon oo kaadi Axmed hadalka ku kaliya Axmed Liyon hadalka ku kaliya horta waxa dareemi kara nin aabihii maanta halka kaga xiran yahay waxa laga yaabaa dhalinyartan hadda meesha saaray inay qadiyad iyo waxa weeye dilaa kuure isaaqnimo iyo meelashisha waxa weeye dilaa kuure ay ka hadlayaan laakiin aniga itaabanaysa isaameynaysa ee 4 sano aan qiil ula ooyaya waxay tahay in aniga aabahay ba iga xiran lagama yaabo dadka in aabayaashood ka xiran yihiin in aabayaashood macaan qaba ay xiran yihiin lagama yaabo waxa laga yaabaa qof ay isku qabiil yihiin qof ay isku hayb yihiin qof waxa weeye dilaa kuure meel kale ka yimaaday qof ay isaaqnimo ugu yeelinayaan xitaa inuu xiran yahay laga yaabaa laakiin aniga waxa xirawo aabay waa qof waxa weeye dhiigiisii ninka aaba xiran in maanta dalka waxa weeye qof walba iska cabaado iska qayliyaan aniga waxba ii soo kordhin mayso sabab faanteer ma dadka kale way iska hadli karaan laakiin taa lacagta waran way jirtaa aniga adeerkay baa la hadlay waxa ay tola dilo kuuraya firdhiye 2 jeer isla hadleen markii hore arrinka iyadoo ay soo dhawaan rabto bulambarkii ku dhiga mar labaad badana la waca haddana waxa weeye dilo kuuriya salaadiinta waxa weeye dilo kuuriya baa wacay salaadiintii markay waceen garajaawa garacali bay wacay garajaawa wuxuu yiraahday waa la tooganaya khadka iga baxa aniga aabahay baa lagu korkortamaya oo waxa weeye dilaa ku dushada la isku yeeriyayo qof walba uu doonaya dhulbaanta qof walba dhulbaantaas qiriye kabiirba inuu dhiigiisa uu baxayaa waxa weeye dilaa ku dhaliyo anigu ii dhalaabay oo waxa weeye gabdho kale u dhal oo rag dhalinyaro abu dhala anagiiba agoomoobana oo dhiniyo xareedina xanintii nimanka waxa weeye dhulbaanto ilmaade real ilaahay ka baqo waxa weeye walaal shucuurta taa hadalkii xataa saabiga 4 sano saaxib ooyay maanta oohin kala kuma sii darsan karo aabay halka qol saaran in la yiraahdo risac baa la tooganaya saada baa la tooganaya bilaa caleeg aniga igu bedela xataa idin firdhiyo ilma real inta duubtaa firdhiyo sigeey ii kaadiyaan ina remote kala wiilka hadalka dhameystay ina real oo hadalka reer Soomaaliland oo weyda sii reer Soomaaliland inta
لما يصير صاحب لما يصير firdhiyo qoodhaaya xerada ay xidhintaa inaad nin ragaata boodaba maalinba boodiyo ninba qaawan tani waa adduun waxa weeye waxaanaad ku ciyaaraysaa waa niman dhalinyaraayo soo kacayaanu nahay aabbahaya macaan buu qabaa dhiikar buu qabaa waxa weeye adduunya gure wuu xanuunsanaya uwa bukaan socod inaad qoodhaaya xerada ay xidhintaa firdhiyo noo siidaa dee haddii xasan sheekh maxamuud kuu yimid nagu ixtiraamo noo siidaa aabbaayo qoodhaaya xerada ay xidhintaa ilaahay baa kugu dhaariyee waxa weeye noo siidaa aabbaayo oo nabadiisa ha hel oo ha tooganin wax allaaliya waxaa doontid baanu ku siinaynaa ninka la yidhaha firdhiyo haddaad tirahdfirdhiya ay siixtaa waa siinanaf bay maraysaa inay goodo wiilkaas wayna garka yogolka wiilkaa qabtay waa ku siinaya hadalka maamuudii gashidi sanadka muuqaalkan haddii aad nala soo gaarteen nala dhagaysateen codkan halkan idinkugu baahiyey waad ku mahadsantihiin daawashadeena qiimaha badanow waad ku mahadsantihiin daawadayaasheena codkaasna waxa uu ahaa wiil uu dhalay sarkaal ku xiran laascaanood oo xaqiijinayay dhibaatada adag ee maxaabiista laascaanood ku xiran ay wajahayaan iyo in tiirka toogashada la geyn doono maalmaha soo aadan oo ay maamulka waqooyi bari Soomaaliya u xaqiijiyeen waad ku mahadsantihiin la gunaanadka muuqaalkan haddii aad nala soo gaarteen daawadayaasheena qiimaha badanow waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo